لزوال الدنيا أهون على الله من إهراق دم المسلم بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دنو ماشا كبحدو لوايو إلهي أكتي سواحي كلفظ الضهيب النبي يري ديك قف مسلم وحق در لغو دادي أبو رسولك يري ديك مسلمة دقال بالله قال الجهاد dhinaca mushrikiinta ka soo jeeday baa dhufays ku dhacay nin ansaariya ku qabtay seeftii markuu seeftii lagu qabtay u arkay in la hayo ayuu iska yidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah uu ka daayay markaa ninkii ansaarigii dagaalkiibu hore ka sii galay ninkii kalmadan yidhi ee dhufayska ku jiray markuu arkay in laga sii jeestay intuu ka daba tegay buu boqnaha ku gooyay seef haddana dhufayskiibu ku dhacay ku kala ku qabtay seeftii kii kalena markaasuu waa shahaato wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah uu ka jeestay kiina qoortuu ka gooyey usaamata binu zayd baa arkaya allah raalli ka noqdeen kolkuu seeftii ku qabtay buu waa shahaatay kama joojina qoortuu ka gooyey usaama ninkii dagaalkii markuu dhammaaday warbixintii baa nabiga loo gudbiyey calayhi salaatu wasalaam saadiqu lmasduuq wa qaa'idu ljaysh asagaa markaa loo celiyey warbixintii jihaadkii siduu u dhacay wixii qaladaad halkaa ka dhacayna nebiga waa loo sheegoo la yidhi nin ashahaatay ayuu usaama diluu qor madaxa kaga gooy seef markaaba nebiga wejigiisii baa bedelmay calayhi salaatu wasalaam yaa usaama أقتلته بعدما أن قال لا إله إلا الله ومركو كلمة داير كدم ياد شيء مركز إنه كان متعوذا بها يا رسول الله أكم مجنجلي لبننا مسلمين هرتيبو كد جيو قرتك جوي مركب النبي كل قلبي جيسين تود الله عيسي ما ذقاتينه كلمة دب أجري إنه عربك كيري حلكي النبي فدي وكعي على درتين markaasuu usaama nabiga xaynka qabsaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuul allah ilaahay dambi dhaaf ii weydii ilaahay dambi dhaaf ii weydii markaabuu nabigu ku yidhi yaa usaama maalinka qiyaamaha seed yeeli doontaa markuu ninkaasi banka qiyaama uu la yimaado isagoo kelmaddaa ku celcelinayo laa ilaaha ila allah seed yeeli doontaa u fiirso waxaan tamaniyey buu yidhi usaamata binu zayd wa xibbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam isagiiyo aabbihiiba waa labada nin ee nebi maxamed saxaabadiisa ugu jeclaa weeyaan waxaan tamaniyey buu yidhi maalintaa intii ka dambaysa islaamnimada in lai xisaabin lahaa ayaan tamaniyey buu yidhi intii ka hore waxba layga soo qaadeenba kelmaddani waa kelmad culus ayadaa markaa qofka bini aadanka qiimaha u yeelaysa ayadaa qofka dhiiggiisa ilaalinaysa ayadaa qofka maaragtaan cirdigiisa ilaalinaysa ayadaa qofka bini aadanka shareecadu ay ku miisaamaysaa low wudicat samaawaatu sabcu walaraadiinu fii kafatin walaa ilaaha ila allahu fii kafatin larajaxat bihinna laa ilaaha ila allah waa nebi muuse calayhi salaam ayaa rabbigii ku yidhi kelmadaan kugu barya isii markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah dheh yaa rabbi kelmaddan addoommahaaga wan wanaagsan oo dhan baa wada isticmaalee to aniga ii gaaramaadi siisid markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa toddobada cer iyo toddobada dhul haddii miisaanka kafad la saaro toddobada cer imsaa makhluuqaad ku nool toddobada dhul imsaa khalqi ku noole khalqi haysaa waxaasoo makhluuqaada haddii la soo qaado kafad la saaro laa ilaaha ila allahna kafadda kale la saaro laa ilaaha ila allah baa ka culus baa ilaahay yidhi innaka zamankeennan aragtidaas badishay maadaama zamankeennan dadku maaddada ay ku dadaaleen waxaa dhacday qofka bini aadanka in lagu qiimeeya maaddadiisa zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kor maray iimaanka iyo maaragtaana tacalluqa dadku ilaahay ay la leeyihiin markaasaa qofka muslimka lagu qiimaynaya iimaankiisa iyo camalkiisa magaalada madiina nin la odhan jiray julaybiib
radia allaahu canhu nin wuxuu ahaa damiima oo aan aad u qurux badnayn, waliba iska kaftan badan oo meelaha dadka la kaftama. faqiir magaalada madiine aqal iyo qaraabo iyo qaran midna kuma leh. mar walba wuxuu la fadhiistaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo nabigay wada fadhiistaan. marka masjidka laga kala dareera nabiga isagaas ku hadha. maalin buu nabigu ku yidhi ma guursatay? markaasuu yaa rasuulallah aniga ayaa ii guurinaya, ninkaygan iska faqiirka, xoolo ma lihi, qurux ma lihi, degaankaygii maaha magaalada madiina, ayaa ii guurinaya. xaliif weliba reer ansaareeda buu la ahaa xaliif. markaasuu nabigu maalin maalmaha ka mida buu ku yidhi haddana ma guursatay? markaa buu yaa ii guurinaya aniga nebi allow. laba saddex jeer markuu nebigu sidaa u weydiiyey, nin ansaariyo reer madiine ah oo inantiisu inay qaan gaadhay uu nebigu ka warqabay ayaa nebigu ku yidhi inantaadaan kaa soo doonayaaya isii. markaa buu yidhi oo nebi allow maadaa inantayda iga soo doonaya? warhaa inantaaday baan doonayaaya isii. markaasuu ninkii aad ugu farxay ansaarigii, waad iga heshaa wax u eg. markaa buu nebigu ku yidhi anigu uma rabin naftaydee yaad u rabtaa haddaa? julaybiib baan u rabaa. waa nin magaalada madiine laga yaqaano, miskiina, faqiira, weliba aan qurux badanna lahayn oo dad maaragtaane quruxsanna aanan ahayn, laakiin waa shakhsi iimaaniya ilaahay ku xidhan oo asxaabada ka mida weeyaan. markaa buu yidhi yaa rasuulallah ma julaybiib baad inantayda? haa julaybiib baan u doonaya, adu gabadha maba doonay, julaybiib baan u doonayay. markaasuu yidhi julaybiib ahaa, bal inanta hooyadeed baan tala geline iikaadi buu ku yidhi. markaasuu u tegay oo wuxuu ku yidhi naadee gabadheenni waa laynaga soo doonay. markaabe ooyaa inaga soo doonay? dee nebi maxamed calayhi salaam. markaabe tuwaba nicmade, dee nebigu naftiisa lama rabo, ayuu la rabaa julaybiib ahaa. allahayka alla oo kale isticmaashay. markaas waar sawnakii hebel iyo hebel intaasoo oday ay wiilashooda nooga soo dooneenan u diidnay maabay ku tidhi. julaybiibna sawninkaa taqaanid maaha, dee nebi maxamed baa soo dooneen miyaan diidi karnaa? odaygii iyo islaantii oo hadalka isku celcelinaya, inantuna markaa aqalka gadaashiisay fadhida xagga dambe. innaga zamankeenna gabdhaheennu bannaankay u soo baxeen, laakiin zamanka dadku way fiicnaayeenoo gabadhu aqalka kamay soo baxayn, gabadhu ma soo haasaawo tegayn, gabadhu ragga ma soo eeganayn. gabadha waxa u soo haasaa waayey aabbaheed, gabadha waxa u haasaa waayey adeerkeed, gabadha waxa u maqnaa walaalkeed, gabadha waxa u maqnaa abtigeed hooyo la dhashay. ninka saxaabiga ansaariga markay gabadhi u dhalato ee inantaasi ay qaan gaadho ayay nebiga u sheegi jireen, ku odhan jireen nebi allow inantaydii way qaan gaadhay, haddaad adigu aad doonaysana waa kuu diyaar, haddaad cid u rabtana nebi allow ciddaad u ishaartaba waan u guurinay, soo sheeg bay odhan jireen. sidaasuu markaa nebigu ku ogaaday gabadha inay qaan gaadhay. deedna inantoo xagga dambe fadhida ayaa ku tidhi ma nebi maxamed oo ikiin weydiistay baad maya ku celinaysaan bay ku tidhi. dee nebigu kuma rabe julaybiib buu kuu rabaa baa lagu yidhi. markaabay ku tidhi wain kaana julaybiiban bay ku tidhi. markaa julaybiib haba noqdaba, ilaahay iyo rasuulkiisu anigay dayici maayaan bay tidhi, meel xuni dhigi maayaan. marba nebi maxamed hadduu ikiin weydiistay waa ku kalsoonahay bay tidhi, ilaahay ma dayacayo, ibixiya. markaasaa ninkii saxaabigiibaa nebiga u yimiday, yaa rasuulallah gabadhii waad naga heshaa, ninkaad sheegaysay bay yidhahdeen waa ku deeqna sii. markaa buu nebigu u yeedhay saxaabadii, war julaybiib gabadh baa la siiye, bal ha loo gurmado. markaa nin walba wuxuu hayay buu siiyey. war bal waa kane aqalkii mariinkii iyo meherkii iyo waxaad hawshii intan ku gal baa lagu yidhi. magaalada madiina markaa suuqa madiina laga naadin jiray marka jihaadka la baxayo. dhawaaq buu maqlay markaa la leeyahay ilaahay dartii ayaa u baxaya oo ilaahay jidkiisa u dhimanaya oo janno ku bishaaraysanaya, jihaad baa loo naadinaya. markaasuu fikro wuxuu yidhi ma gabadhaabaad la caqalgashaayod iska guursataa lagu siiyey wax huruutiine, mise xuuralcayntaad ku hoyataayoo jihaadka intood u baxdo ayaa shahaado ilaahay aad weydiisataa buu yidhi. markaa buu wuxuu ku
qancay oo